kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta 477 ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsantahay Faisa. maantana waxaan barnaamijka tubta nabadda uga hadlaynaa wax ka qabashada arrimaha isbeddelka cimilada Soomaaliya, saamaynta uu ku leeyahay nolosha dadka Soomaaliyeed iyo xalalka la hirgelinayo si wax looga qabto caqabadaha ka dhashay isbeddelka cimilada. isbeddelka cimiladu waa xaqiiq ay la nool yihiin dadka Soomaaliyeed. abaaraha soo laalaabtay iyo roobabka oo si isdaba jooga u baaqday ayaa si gaar ah u saameeyay nolosha bulshada, gaar ahaan xoolo dhaqatada iyo beeralayda. waa sax midaasi Faiso, tani waxay sababtay in qoysas badan ay ka dhammaadeen xoolihii ay noloshoodu ku tiirsanayd, halka sidoo kalena ay aad hoos ugu dhaceen wax soo saarka beeraha, taasoo abuurtay in amniga cuntada uu halis galo qoysaskana ay ku adkaatay inay noloshooda maareeyaan. saamaynta isbeddelka cimilada laakiin waa mid intaasi ka ballaaran. waxay sidoo kale mas'uul ka tahay colaado badan oo dalka ka horaya, maadaama bulshooyinku ay ku tartamayaan biyaha oo gabaabsi ah iyo dhulka ay xooluhu daaqaan. sidaas darteed tani kama dhigayso isbeddelka cimilada dhibaato deegaan oo keliya, balse waxay ka dhigaysaa halis soo wajahaysa nabadda iyo xasiloonnida dalka. waa sidaas Cabdi Casiis. iyadoo taasi ka jawaabaysa dowladda oo taageero ka helaysa qaramada midoobay, waxay xoojinaysaa siyaasadaha isbeddelka cimilada, nidaamyada jawaab celinta degdega ah iyo jawaab celinta isbeddelka cimilada. hay-adaha qaramada midoobay waxay sidoo kale taageeraan nidaamyada waxbeerista u adkaysan kara isbeddelka cimilada, kaabayaasha biyaha, iyagoo bulshada ku caawinaya inay maarayso gariirada ka dhasha isbeddelka cimilada. balse waxaa loo baahan yahay xalalka muddada dheer oo diiradda saaraya maareynta biyaha, sida keedinta biyaha roobka, ilaalinta ceelasha iyo hagaajinta nidaamyada waraabka. waxaa sidoo kale muhiima kaalinta ay bulshadu ciyaarayso, sida abuurista guddiyada maaraynta biyaha iyo khayraadka kala duwan si loo yareeyo xasaradaha bulshada ka dhex dhaca, loona xoojiyo adkaysiga bulshada dhexdeeda. tallaabooyinka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah cagaarinta Soomaaliya, iyadoo ujeedku yahay in la beero geedo kala duwan si loo xoojiyo arrimaha ilaalinta deegaanka, si loo soo celiyo tayada dhulka ee hoos u dhacday iyo tayada dhulbeereedka, isla markaasna loo taageero nolosha bulshada. tallaabooyinka noocani ah waxay kobcinayaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada, iyagoo sidoo kalena dhowraya mustaqbalka. haddaba dhegaystayaal, si aan arrintani wax badan uga ogaano, waxaa maanta barnaamijka marti noogu ah Maxamed Cali Axmed, kusimaha agaasimaha waaxda isbeddelka cimilada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya, iyo Suweyda Maxamed Cabdi, gudoomiyaha ururka Greenland Association oo ah urur maxalli ah oo ka shaqeeya ilaalinta deegaanka. agaasime Maxamed, haddii aan adigu kugu bilaabo, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida aadka ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada. waxaa ka jira abaaro soo noqnoqda, fatahaado iyo barakac. haddaba sidee ayay arrimahani u saameynayaan bulshada maxalliga ah? waase kuwee qeybaha uu sida gaarka ah saameynta ugu yeeshay? daraasaad la sameeyey sanadii 2022 oo ay sameeyeen hay-ad la yiraahdo Indigain waxay tilmaamaysaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada ugu nugul. qiimeyn laga sameeyey 187 wadan, Soomaaliya waxay listiga ka soo gashay liiska 164, taasoo ku tusinaysa in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada. Soomaaliya waxa ay ka qayb qaadataa sii deynta qiiqan saameynta ku leh hawada, marka la fiiriyo eber 3% markii dunida oo dhan loo fiiriyo, halka wadamada China ay ka qayb qaadato 30%, halka USA ama American ay ka qayb qaadato 15%, taasoo aad ka arki karto in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu yar ee ka qayb qaata saameynta isbeddelka cimilada, haddana ay tahay wadamada ugu nugul uguna badan ee dhibaatada ay kasoo gaarto. dadka Soomaaliyeed marka la fiiriyo 55% waxa ay ku nool yihiin dhulalka miyiga ah. dadkaasna waxa ay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha. 65% dadka Soomaaliyeedna waxay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha, halkaasoo kobaca dhaqaalaha wadanka markii la fiiriyana 75% uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, taasoo ayadana markii la fiiriyo waxyaabaha aan dhoofino marka celcelis loo fiiriyo 93% ay ka qayb qaadato. bulshooyinkaasoo dhan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda wax soo saarkooda
kulli waxay ku tiirsan yihiin beerihii iyo waxay ku tiirsan yihiin xoolihii. Marka saameyntan isbeddelka cimiladu ay ugu weyn tahay daadadkii, ay ugu weyn tahay abaarihii, ay ugu weyn tahay dabeelihii iyo kulkii ama kulaylkii, waxa ay saameyn ku yeesheen dalagii beeraha, waxay sidoo kale saameyn ku yeesheen xoolihii. Sidaa daraaddeed marka haddii bulshadu aysan haysanin beerihii ama biyihii ay xoolihii ayagaba ay ku noolaan lahayn, waxay ku qasbanaanayaan inay kasoo tagaan habnololeedkoodii miyiga ka jiray oo ay soo raadsadaan goob ay ku badbaadaan oo ay noloshooda ugu badbaado oo ay magaalooyinka ay soo galaan. biyo yaraantu waxay xiriir toosa la leedahay sugnaanta amniga cuntada iyo colaadaha ka taagan Soomaaliya. Haddaba maxay tahay sababta ay muhiimka ugu tahay maareynta biyuhu wax ka qabashada dhibaatada isbeddelka cimilada, yareynta gaajada iyo wax ka qabashada colaadaha ka dhashay isbeddelka cimilada? Wasa Cabdicasiis, biyo yaridu waa wax jira, haddana sidaas ay tahay haddana dadkii mararka qaar iyo xoolihii waxay u dhintaan daadad oo sanadkii waxaa laga yaabaa qayb ka midana in xoolihii ay u dhintaan ay daadad ku harqoomaan, haddana qayb ka midana sanadkii inay u dhintaan biyo yari oo waxay cabaan ay waayaan. Way jirtaa, waa sax in ay weli yar tahay awooddii lagu maareyn lahaa biyaha loogana faa'iideysan lahaa daadadka. Sidoo kale biyo yaridu khilaafaadku way keentaa oo ay ugu badan tahay markii daaqsimaha la joogo. Xoolo dhaqatadu inta badan waxay raadiyaan dhulka naqa leh oo roobka uu yacni ka da'ay ama daaqsinta leh. Dabcan dhulkaasna waxaa leh dad iyo duunyo ayaa ku nool. Sidaa daraadeed mararka qaar isfaham waa dhaca ayay ku timaadaa in khilaafaad dhaco, mararka qaarba dhiig uu ku daato oo bulshadu isku dagaalaan. Waxaana u sabab ah biyo yari dhacday ayadoo loo aaneynayo saameyntan isbeddelka cimiladu ay u geysteen duunyadii iyo xoolihii iyo dadkiiba ay u geysteen. Laakiin mararka qaar dunidu waxay tirahdaa laba shay, marna in lala qabsado, marna in la yareeyo saameyntan oo isbeddelka cimilada loo geysanayo. Soomaaliya marka in ay wax yareysaay wax badan oo waqtiga ma gelinayso, laakiin in ay la qabsato saameyntan daadadkan abaarahan lala qabsado oo yacni bulshadu bilooyinka yare abaartu yacni bisha ama 2 bil ama 3 bil ee abaartu jirto ay u adkaystaan yacni waxyaabaha jira ay inta badan dowladda xooga saaraysaa qarashka iyo awoodda ugu badan imkaaniyaadka ugu badan la gelinaya. Waana filaya inay wax badan isbedeli doonaan sanadaha soo socda. ugu dambeyn maxay yihiin tallaabooyinka la taaban karo oo ay qaadayso dowladdu iyadoo kaashanaysa bahwadaagta caalamiga ah si loo xoojiyo adkeysiga, ilaalinta nolosha, amniga biyaha iyo kan cuntada muddada dheer? Waxaa jiro heshiisyo adduunka uu wada gaaray hay'adaha adduunka ka shaqeeya arrimaha cimilada, arrimaha deegaanka, arrimaha noolaha kala duwan. Mathalan Soomaaliya waxay qayb ka tahay hay'adan loo yaqaano isbeddelka cimilada adduunka UNFCCC. Ayadoo heshiisyada iyo hay'adaha aan qaybta ka nahay la tix raacayo, Soomaaliya waxa ay sharci ahaan iyo policy ahaan iyo qorshe ahaanba diyaarisay dukumentiyadii ama waxyaabihii dunida lagula macaamili lahaa. Tusaale, Soomaaliya waxa ay dhammaystirtay oo ay gudbisay heshiiska ka go'naanshaha wax ka qabashada isbeddelka cimilada loo yaqaano NDC kiisii 3aad oo la gudbiyey sanadii hadda lasoo dhaafayo bartamaheedii. Sidoo kale qorshaha la qabsiga isbeddelka cimilada oo National Adaptation Plan loo yaqaano ay Soomaaliya gudbisay sanadii hadda lasoo dhaafayay. Sidoo kale qorshaha loo yaqaano NTP ama National Transformation Plan oo ay wasaaradda qorsheynta ayaduna gacanta ku hayso oo ay 4 tiir oo qorshahaas uu ku taagan yahay. Tiir ka mid uu yahay deegaanka iyo xasiloonida isbeddelka cimiladu ay wasaaradda ayaduna ay wasaaradda deegaanku ayaduna ay maamusho oo ay mas'uul ka tahay. Marka intaasoo dhanba waxa ay Soomaaliya institutionally ama hay'ada ahaan ama dowlad ahaan ugu diyaar garowday inay wax ka qabato arrimaha isbeddelka cimilada. Waxaa jirtay sanadii 2024 inay booqasho ku timid wadanka agaasimaha guud ee sanduuqa isbeddelka cimilada. Kadibna Soomaaliya loo ogolaaday ay ka mid noqotay Soomaaliya wadamadii ugu degdegta badnaa ee sanduuqa cimilada adduunka ee GCF loo yaqaano Green Climate Fund ee ka heshay adduun lacageed gaaraya 100 milyan, kaasoo inta ugu badan u galayaan arrimaha beeraha iyo waraabka, taasoo hadda ay maamusho wasaaradda beeraha iyo waraabka. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Axmed, kusimaha agaasimaha waaxda isbeddelka cimilada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya oo marti inoogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda.
balse iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan waraysi aan la yeelanay Suweyda Maxamed Cabdi, guddoomiyaha ururka Greenlight Association oo ah urur maxalli ah oo ka shaqeeya ilaalinta deegaanka. Suweyda, adoo kaashanaya khibradaada maadaama aad u doodo wax ka qabashada dhibaatada deegaanka iyo isbeddelka cimilada, sidee ayuu isbeddelka cimiladu u saameeyaa dumarka iyo gabdhaha? guud ahaan horta markii la dhaho isbeddelka cimilada dhammaan dadweynaha dhalinyar ha ahaato haween ha ahaado odayaal ha ahaadaan dhammaantood way wada saameeyeen taas ahaan waxay aad iyo aad u saameysay haweenka iyo caruurta weliba iyo dhalinyarta isbeddelka cimilada qaas ahaan markii haweenka la yiraahdo horta haweenka waa kuwa ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada waxayna sababtoo ah haweenka waa tiirka qoyska oo ku tiirsan yahay haddii ahaato marxalada kaleeto iyo xaalado kaleeto hadday tahay haddii xaabo la doonaayo haddii la doonaayo beer lasoo falaayo waxaa aad iyo aad u adeega haweenka haweenka waxay door weyn ka qaataan qoyska tiirsanaanta qoyska iyadoo xaalado adag u marayso haddii ahaan lahayd amni darine meel fog inay aad oo kaleeto biyo ka doonto ay xaabo ka doonto waxay sababay inay maxaalaha sheegi meeshaas ay wax ku dhacaan markaan soo noqono general horta markii Soomaaliya loo fiiriyo isbeddelka cimilada wuxuu naga saameeyey abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqda abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqda waxaa aad iyo aad ugu saameyn bi-an u geysta haweenka iyo caruurta markii la fiiriyo percentage ahaan dhanka kale markii loo fiiriyo ama qoomiyadda kale dadka kaleeto haddii ahaan lahayn ragga haddii ahaan lahayn odayaasha markii loo fiiriyo waxay aad iyo aad u saameysay haweenka iyo caruurta maxaad nooga sheegi kartaa howlaha ay qabtaan ururada sida kaaga oo kale si aad uga taageertaan gabdhaha iyo haweenka ka jawaabista caqabadaha isbeddelka cimilada? waa mahadsan tahay marka koowaad ururkeena iyo ururada lamid ah waxay aad iyo aad ugu shaqeeyaan wacyigelinta qaybta wacyigelinta iyo qaybta aqoon kororsiga iyo dood cilmiyeedka markii aan sameyneyno aqoon kororsi ama dood cilmiyeed markaan sameyneyno waxaa mar walba kusoo darnaa haweenka iyo dadka oo wax ku oolka ah oo saameeya isbeddelka cimilada si loo baro oo loogu maxaalaha loo sheego ama loola maxaalaha sheego tababaro in cimilada isbeddelka cimilada la adkeysiga ama la qabsiga isbeddelka cimilada ama qaabkii ugu fudud oo loogu xalin karo si loogu tababaro doodahane waxaa la iskugu keenaa dhanka doodaha markii loo fiiriyana waxaa la iskugu keenaa dad khabiiro ah oo ka dooda arrimaha isbeddelka cimilada iyo sida ay u saameysay haweenka iyo caruurta. ugu dambayn, wacyigu muhiim ayuu u yahay ilaalinta deegaanka. haddaba maxaad nooga sheegi kartaa noocyada wacyigelineed iyo tallaabooyinka muhiimka u ah in bulshada lagu caawiyo inay fahmaan isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanku? waxaan sameynaa iskuulaan tagnaa iskuuladaas waxaan ku tababarnaa caruurta ama dhalinyarada waxaan ku tababarnaa in la sameeyo xirfad ama maxaalaha oo lagu badbaadin karo isbeddelka cimilada tusaale oo kale caruurta waxaa u tababarnaa waxyaabaha recyclingka la dhahayo oo xirfadda oo recyclingka in plastigyadii ama bacihii ama wixii oo la tuuri lahaa oo kale in recycling loo bedelo iyo dhalkii old clothes oo kaleeto in recycling loogu bedelo oo waxyaabaha bagis iyo wax kale laga soo saaro plastigyadana in laga sameyn karo like sidoo kale interlog iyo waxaas in laga sameyn karo iyo waxaan sameynaa plantation wax la dhahayo dhirbeerista waxaa ka sameynaa iskuulada marka caruurta markaan u tababarno oo jiilka aan diyaarino oo aan u diyaarino qaabkii ayaga markay kusii kordhaan sii kordhaan ay u bartaan deegaankooda muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabaha saameeya deegaanka arrimaha deegaanka waxyaabaha effect gareeya in dhirta la xaalo filin oo kaleeto haddii ardaygii u beer geed u beer dhir inuu jiro way ku adag tahay waxaan uga baaqayaa dowladda Soomaaliyeed in la sameeyo shuruucyo lagu ilaalinayo arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada si lagu hortago dhibaatooyinka soo noqnoqda mar walba
ugu dambeyntii dabayaaqadii 2023 shuruucdii lasoo saaray ee ahayd joojinta bacaha oo weli aad iyo aad aan loo horgelinin waxaan jeclaan lahaa in laga dhabeeyo shuruuc walbo lasoo saaro iyo in lagu dhaqangeliyo dadka bulshada. waa mahadsantiin. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Suweyda Maxamed Cabdi, gudoomiyaha ururka Greenlight Association oo ah urur maxalli ah oo ka shaqeeya ilaalinta deegaanka oo marti inoogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. dhegaystayaal, annagoo ku sii siqayna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna, iminkana waxaad ku soo dhowaataan hees uu inoo qaadayo fanaanka weyn ee Hanuuniye oo ka hadlaysa muhiimadda ilaalinta deegaanka. waxay tiishidaa timid dhirtiyaan ka shugi jiray luxul baaba laga shiday bal dadkaaga waxuu sheeg shimbir duulay baa yidhi dhirta aad shafaysaa haddan shidista laga dayn shaki male waxaa dhici shalayo nabaad guur shimbiruhu ka yaacan xooluhuna shufbay noqon haddaynaan shirmaw xiran bal dadkaaga waxuu sheeg. waa hagaag dhegaystayaal, aan intaas uga gudubnay heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka Cabdalle Yuusuf Hanuuniye oo ka hadlaysay muhiimadda ilaalinta deegaanka. waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'iise Cabdi Warsame. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay Tubta Nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada, idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan.